السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة المل والبؤات جوكتان كسو دوادا كنال كنا هكاتش. Today we are going to take an English class from phrases. waxaan qaadan doonaa maanta phrases ama jumlada gaagaaban. Phrases waa jumlada gaagaaban ama weedho gaagaaban oo ku saabsan classroomka ama qolka wax lagu barto oo English ah. Halka ka barans waa hekatch qofka ku soo jeedinayna waa Muxudiin Cabdi Cali balan casharka uu gaba galan. Okay, kuwan waxa weeye waa erayo ama waxa weeye su'aalo ama sentences ama waxa weeye weedho waxa weeye gaaban laakiin macno weyn ka sameynaya markii classka la joogo. Okay, weedha ugu horeysa waxaan leeyahay can you help me please? ma caawin kartaa? Can you help me? ma caawin kartaa? Please fadlan. Can you help me please? ma caawin kartaa fadlan. Can I go out? ma yani dibadda ma u bixi karaa? Okay, can I go out? dibadda ma u bixi karaa? macalinka weydiisanaysa. Can teacher baa ku dhihi karaa teacher lecturer haddaad doontid. Can I go out please? dibadda ma u bixi karaa baa dhahaysa. Okay, can I answer the question? su-aasha ma ka jawaabi karaa? farta intaa taagto raise up your hand. gacantada taag baa lagu leeyahay macalinka. If you want to answer a question here in classroom, haddii aad rabto inaad su-aal ka jawaabtid classroomka dhexdiisa, you have to raise up your hand first. You have to raise up your hand. waa inaad gacantaada kor u qaadaa inta aadan yani hadlinba intaada waxba oranba. Okay, so can I answer the question? macalinka baa waxa ku leedahay ma ka jawaabi karaa su-aasha? Can I answer? ma ka jawaabi karaa the question su-aasha? Can I switch off? ma demin karaa? Can I switch off? ma awooda way can I saa ma samayn karaa way karaa. Okay, switch off na waa maxay? waa demin way. switch off waa demin. The lights laambadaha ma demin karaa baa leedahay. Can I switch on? sidoo kale ma daari karaa the bulb? laambada ma daari karaa ama guluubka ma daari karaa? waxaan lights iyo bulbs waa isku mid. Okay, lights iyo bulbs maxaan iri waa isku mid. Can I turn on the lights? sidoo kale waxa dhihi karaa ma daari karaa leerka. marka turn on iyo switch on waa isku mid, waa isku macno. switch off waxa weeye ayadu waxa weeye waa ka soo horjeeda oo halka ka tahay switch on halka switch on iyo turn on ay ka yihiin daarid. sorry, halka switch off ay ka tahay deminta, switch on iyo turn on waxay ka yihiin daaridii. Okay, teacher halkan dhanka kale u gudub. Teacher please can you repeat again? ma ku soo celin kartaa fadlan? Teacher macalin please fadlan can you repeat again? mar kale ma ku soo celin kartaa? Can I open the window? daaqada ma furi karaa? window waa daaqad, open waa furi. Can I open the window? daaqada ma furi karaa? Can we pack our things now? hadda alaabteena ma diyaarsan karnaa? boorsooyinkeena ma ku guran karnaa? pack waa diyaarsasho. sidoo kale ereygan pack waxaa la yihahdaa koox yey baa la yihahdaa. koox yey ah oo isla socoto oo waxa weeye wada jira baa waxaa la yihahdaa a pack of wolves. koox yey ah. Okay, laakiinse halkan maanta maxaan ku baranaa pack inay tahay waxa weeye alaab in boorso lagu guro. alaabta yani qalimaantaadii, buugaagtaadii, waxa weeye cabitaankii biyaha waxaa ku wadatay oo kale inaad ku guratid waxa weeye boorsadaada baa waxaa la yihahdaa pack. So can we pack our things now? يعني casharkii ma dhamaaday weeyo hadda alaabteeda ma diyaar garoobi karnaa inaan baxno waqtigii tegitaanka ma dhow yahay. Okay, waxa weydiinaysaa what page safxadee ama bogeebaan are we on hadda marana? bogee hadda marana. bogee hadda marana. dad baa wax la akhrisanaysa, buug baa wax ka wada akhrisanaysa, markaasaa leedahay what page are we on? page kee marana? 200 300 baa lagu dhihi karaa macnaha 300 200 page 20 page ka labaatanaad ama page 200 page 300 page 400 whatever waxaad doontaa dhihi kartaa. waa soo baranay sida nambarada Englishka lagu yiraahdo. dib ugu noqo kadibna yani waa inaad saaxiibada ku weydiin kartaa page kee marana, waa inaad u sheegi kartaa, uga jawaabi kartaa. Okay, I'm ready. diyaar baan ahay. may I start? ma bilaabi karaa? diyaar baan ahay ma bilaabi karaa? presentation baa daadan soo jeedinaysa markaasaa ku tiri macalinka I am ready. waxaan ahay diyaar. may I start it? ma bilaabi karaa? may hadday meesha timaado waxa ay tusinaysaa
inaa wax lagu ogolaansha sugaysa macnaha ogolaansha weydiisanaysa waxaa ma samayn karaya adigoo weliba si akhlaaq iyo edaabi ku dheehan tahay u weydiinaya qofka macnaha qof macallina ama sheekha ama waxa weeye adiga waalid aba wax rabta inaa wax weydiisid may waa erey fiican oo loo isticmaali karo may I start it ma bilaabi kara what is the homework waa maxay shaqada guriga shaqa guridu waa maxay macnaha shaqa guridu ma xisaab baa ma physics baa weydiinaysaa waa maxay shaqa guridu okay what is the homework waa maxay shaqa guriga do we have to write this down ma inaan qornaana la ka rabaa do we have to ma waajib baa inaan write this tan aan qorno down inaan tan qorno macnaha write down haddii lagu yidhahdo qor weeye laakiin write this down haddii waxaa lagu yidhi tan qor baa lagu yidhi write this down tan qor markii la isku wada qabtay macna samaynaysa write this down tan qor write that down taas qor okay do we have to mawajiba to write this down inaan tan qorno mawajiba tan inaan qorno ma qandi wajmiya okay sorry waa ka xumahay for being late inaan soo daahidayda waan ka xumahay sorry waan ka xumahay for being late inaan soo daho may I open ma furi karaa or may I close ma xiri karaa the window daaqada waa soo furanay can I open the window waan soo baranay ma furi karaa waa isku mid waa isku macna laakiinse akhlaaq baa tan ku dheehan inta badan okay may I open or may I close the window daaqada ma xiri karaa close waa xirid openna waa furid windowna waa daaqadii may I open ma furi karaa the window baa dhihi kadhaa ama waxa dhihi kadhaa may I close the window daaqada miyaa xiri karaa okay can I go to the board macnaha boardka waxaa la yihahdaa sabuuradda ma aadi karaa come to the board sabuuradda imo baa lagu yidhi sabuuradda imo can I go to the board to write something si aan wax ugu qoro okay can I go to the boardku marka waxay noqon kadhaa blackboard sabuurad yani madow ah whiteboard sabuurad cad labadu way noqon karaan labadaas inta badan la isticmaalaa can I come in ma soo geli karaa can I come in ma soo geli karaa inta classka soo gargaraacday go ba waxaa leedahay can I come in ma soo geli karaa can I pull up the blinds waxaa la yihahdaa halkaan sawirka hadday fiir sawirkan qaybta midig ku yaala fiiri halkan waxaa saaran barkimo yar iyo buug halkan ka sarreeya waa daaqada qaybteeda hoos waa furan tahay qaybta korana waxbaa ku wax aad moodid baa ku dahaaran waxaas ku dahaaran waxaa suurtagal ah in korna loo yani sii daayo oo macnaha korna loo duubo hoosna loo sii daayo baa suurtagal ah marka blinds daaqada noocaas oo kale loo daaho marna kor iyadoo waxa weeye loo duubayo marna hoos iyadoo loo sii daynayo ayaa waxaa la yihahdaa waxaa lagu dahaa la yihahdaa blinds inta badan wadamada horumaray baa laga isticmaalaa daaqadeena annaga caadi baan waxaa ugu xirnaa waxa weeye ama alwaax weeye ama bir baan ku xirnaa marka can I pull up kor ma u riixi karaa the blinds daha daaqada ee noocaas kale u samaysan can I pull down hoos ma u riixi karaa oo ma sii dayn karaa the blinds daaqada waxa weeye ku xiran marka pull down waa hoos u riixid waa inaad sii daysid daha pull upna waa inaad laalaabtid oo kor u laalaabtid may I join the class fasalka ma kusoo biiri karaa may I join the group asxaab wada diyaarsanaysa waxaa leedahay may I join the group please fadlan ma kusoo biiri karaa groupka okay can you explain it once more hal mar in ka badan macnaha mar kale ma kusoo macnaha ma sharixi kadhaa can you explain ma sharixi kadhaa it yani wixii aad mataqaana akhrinaysa hadeer once more mar kale ma sharixi kadhaa please fadlan may I go out dibadda ma u bixi karaa please maxaan soo baranay can I come in may I come in waa dhihi kadhaa sidoo kale may I go outna ma bixi karaa weye please is this right tani ma saxba is this tani right ma saxba is this tani correct ma saxba correct iyo right waa isku mid right sidoo kale waxaa la yihahdaa gacanta midigta okay right sidoo kale waxaa la yihahdaa xaq baa la yihahdaa qofka xaqa uu leeyahay xuquuqda uu leeyahay baa rights la yihahdaa my rights okay dadka u dooda human rights ka baa maqashay macnaha waa xuquuqda bini aadamka right marka waxay noqon kadhaa gacanta midig bay noqon kadhaa sax bay noqon kadhaa xuquuqna way noqon kadhaa correct laakiinse waa wax saxa correct waa sax okay I am sorry
waan ka xumahay. I did not hear ma maqal. I'm sorry waa ka xumahay. I did not hear ma maqal. I didn't hear baan ka dhahdaa ma maqal. Okay, can you speak louder? Kor ma u hadli kadhaa? Can you speak ma u hadli kadhaa? Louder kor macnaha dhawaaq sif macnaha xogaa cod dheer ma ku hadli kadhaa? Please fadlan. Which book? Buge. Which book? Buge. Okay, can you explain ma sharixi kadhaa? That taas again mar labaad macnaha ma sharixi kadhaa? Okay. When is the exam? Waa goorma imtixaanku. Tijaabadu waa goorma. Exam waa imtixaan. When is the exam? Waa goorma imtixaanku. I have done this. Tan waan sameeyey. I have done waan sameeyey this tan. I have done waan sameeyey this tan. Can I go to the toilet? Suuliga ma aadi karaa. Toilet maxaa laga wadaa? Waa suuli. Can I go na ma aadi karaa weye. To the toilet suuliga. To the waxay inta badan tustaa. To waxay tustaa meel loo socdo. Meel loo socdo. To the market, to the school, to the library, to home. waxaas oo dhan waa meel loo socdo. Marka to the toilet waa waxa weeye suuliga ma aadi karaa weye. Okay, waa mahadsantihiin. Fadlan kala socda qeybaha xiga ee waxa weeye phraseska ah. waa weedho gaaban oo runtii macno badan xambaarsan, sidoo kalena ina ka anfacaya inaa Englishkiina uu yacni improvement wax la yiraahdo ama sare u qaad yacni soreyn uu sameeyo insha Allah. ereyadaas waxaa isku daydaa inaa xifdidaan macnahooda iyo ayagaba xifdidaan, sidoo kale waxaa isku daydaa inaa isticmaashaan oo noloshiina maalmeedka ah marka iskoolka joogtaan, kalaaska markaa joogtaan. qofka waa inaa ku dhihi kadhaa daaqada ma xiri kadhaa, daaqada ma xiri karaa, daaqada ma xirnaa, waxa weeye ma soo galaa, ma bixi karaa, suuliga ma aadi karaa, waxyaalo noocaas oo kale waa inaa ku dhahdaa. alaabteena ma diyaarsan karnaa. waa inaa ereyada halka aan ku baray ay macna noloshiina ka dhex sameeyaan. maxaa haddii kale u baranaysaa? haddiina practice garaan ereyga isku day inaa macnihiisa marka hore fahamtid, dabadeedna waxaa isku daydaa inaa qortid, dabadeedna waxaa isku daydaa inaa qof u sharaxday haddii aad heli karin. haddii aad heli karin waxaa kasoo qaada qof ilmo yara inuu ku maqlayo, kadibna isku day inaa u sharaxi karid. dabadeed kolka ugu dambaysana waxaa ku samaysaa waxa la yidhahdaa reflect iyo refine iyo simplify, inaa erayo kooban inaa ku qoratid. okay, erayo inaad soo gaabsatid oo erayada halkan dheer wax yara kasoo koobatid si hadhow aad waqti badan usoo xasuustid. waxaan isku daydaa inaa isticmaashid si maalinlaa u isticmaashid. casharkan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.